waayo waan soo dhaweynaya hablaha reer Afghanistan waayo waa hablo yar junior buqaa weeye hablaha Soomaaliyeed iyo hablaha Afghanistan hadii la isu barbardhigo hablaha Afghanistan tawaraysa gurigeyga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kalati waan saaxiibay meel kasta joogtaan bartan naga daawanaysan waa Bahruud official galabta waxaan ku sugannahay bartamaha gobolka Togdheer halkaas oo aan ku weydiin doono su'aal qofka fikradiisa ka dhimanaya ama idea su'aashaas oo sidaad u aragtaa in hablaha reer Afghanistan lagu soo dhaweeyo Somaliland soo dhawaado ku bilaabay magacayguna waa Nasraan way sidaad u aragtaa in hablaha reer Afghanistan lagu soo dhaweeyo wadanka waa caadi ah lagu soo dhaweeyo soo dhaweynaya hablaha reer Afghanistan waa junior hablo qurux badan weeyaan garaas laakiin hablaheeni ba joogo inta hablaheena joogan kulliba nacaskunba hore iyagu ugu dheereynaya inta walaaliheen iyo hooyooyinkeena arkan iyo dumarkeena caadiga iyagana way soo dhaweynaa waa la mid iyo waa kuwii qaar kala dhalay haddana inagana dhalin marka way soo dhaweynaa hablaha reer Afghanistan aad u mahadsantahay soo dhawaado ku bilaabay magacaaga Sidiiq baa walaalaha Sidiiq Axmed way Sidiiq soo aragtay in hablaha reer Afghanistan lagu soo dhaweeyo wadanka daniyo horta hablaha reer Afghanistan kulli waa dad muslimiin oo demoqraasi dad dalka imanaya Soomaa kulli inaan wadaadana way joogno magaalada joogtay tahay maadaama horta iyagu ma garatay wixii kale rag iska bulada un baad demoqraasi ku faylayowna marka intaas uma iga taani aad u mahadsantahay magacayga wala waxa la iskriicade way iskriiyo sidoo aragtaa in hablaha reer Afghanistan lagu soo dhaweeyo wadanka hablaha reer qaar marka magaalada ku socda imanaya waa markab dhan oo guuxaya armay kuwa wallahi inana meel u hay saaxib wallahi aniga joogan kuwaas way hableena meel ka maraan la waxaan ku TikTok iyo social media saa u dhaxyaayo wax guursada la loo hableena lacag baa lagu saladay nin walba lacag bay doonaysaa ay 3 jir iyo 4 jir ay ku gaadhay say lacag u sugiyeen marka kuweena ma iska macmacaanay kuwa qada naga maqnaadanayo leena inoo baahan aad iyo aad soo dhawaado ku bilaabay magacaygu waa Khalid Axmed Salawaan ku magac dheer Khalid Kamil way Khalid Kamil sidaad u aragtaa in hablaha reer Afghanistan wadanka lagu soo dhaweeyo waayo waan soo dhaweynaya hablaha reer Afghanistan waayo waa hablo yar junior buqaa weeye hablaha Soomaaliyeed iyo hablaha Afghanistan hadii la isu barbardhigo hablaha Afghanistan tawaraysa gurigeyga geeriyaba waa soo dhaweynaya hadii aan leeyno marka waxaan leeyahay hablaha Afghanistan gacmo furan lagu soo dhaweeyo musabixina waxaan leenahay soo dhaweeyo hablaha Afghanistan waayo hadii maanta dalkeena uu ka dhaco dagaal ama qarax Afghanistan ay tahay meel nabad ah waayo halkaas inuu qaxnaa marka hablaha Afghanistan uu soo dhaweynaa saaxiib qaali gacmo furan ku soo dhaweynaa marka saaxiib wasaas aad u mahadsantahay magacaygu waxa weeye Toon Axmed Nuux way Toon sidaad u aragtaa hablaha reer Afghanistan lagu soo dhaweeyo wadanka reer Afghanistan war kuwa boos baan siin laaba kuwa barigoodan ku celin lahaa maxaa ka mid ah sababaad ku joojinayso waxaan ku joojin lahaa niyow weydee waxa yar masaakiinta reer Barcame wadooyinka maray la haadayaanba diintooda gelinayaanba waa sida absolute salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh horta aad u mahadsantahay thank you very much fikradaada sidaad u aragtaa hablaha reer Afghanistan in lagu soo dhaweeyo wadanka tii fikradaada ka soo jeeda oo kuwan gidaarada joogay meelaha wargalasanaya waa hableeni kuwan iyo cid xariisan la waayba Afghanistan iyo waddan kale hablada soo dhaweey fikradaana ma ka soo jeeda aad u mahadsantahay walaal Cabdiqani Axmed Awood baa leeyahay waa dhawe way Cabdiqani sidaad u aragtaa in hablaha reer Afghanistan lagu soo dhaweeyo wadanka war kaliya laabniyo waa soo dhaweynaa niyo wanaad oo kuwii kala ilaalno waalay oo kaliya warku siiyay kaliya laabna soo dhawaadaan leeyahay insha Allah kamida sabab ku soo dhaweynayso leeyahay kuwii kala asqaali gareey 10 kun oo dollar igu guurso anaguna waad kana garanaysaa xaaladiisa shabrayge halkan ige miyaad waalanta idiyo warmada waalanta warwana dhibeeniyo waxa dhis naga daayay marka marba taad garacada xulonaysaa maaliga leeyma goon karo adoorada ku soo gashay magaalada marka waa soo dhaweynaa walaal magacaygu waa Maxamed Khadar Axmed inkastoo maxal la yaqaan inta badan way maaxo sidaad u aragtaa hablaha reer Afghanistan in lagu soo dhaweeyo wadanka wallahi kuwa warkooda ma lahayn bilni oday goorey ma gormay manaya dhawaanba markab dhan baa soo guuxaya wallahi oo laamba ka dhacday Afghanistan oo Barcame laamba ka dhacday qudheedii si loo galeeyay halka kuwan baa kala deelkan joogan oo Afghanistan waxa ka garamayne kuwan baa kala Barcame joogan murmurka ka joogay ma garanaysaa iyagoo iska joogaan oo markabka hal celiyo baniyo wal ku soo socda oo khalad bay soo dhawaado ku bilaabay magacaygu waa Xamse Salmaan Cilmi way Xamse sidaad aragtaa hablaha reer Afghanistan in lagu soo dhaweeyo wadanka niman waxaan u arkaa khalad sababtoo wadanka hablaheeni baa ka buuxoodhe
waxaase ragguna iskaga yihi kacayaan arkayaan markay maqlaan hablaha imanaya markaan waxaan leenahay naga joojiya hablaha reer Afghanistan halkooda iska joogaan waddankooda aaminaan aad u mahadsanti soo dhawaada ku bilaabay magacaaga maxay Cabdirashiid Faarax way maxay Cabdirashiid sidaad aragtay in hablaha reer Afghanistan lagu soo dhaweeyo waddanka wallahi waa fiican tahay waayo hablaha tajaanibka aad baan uga helaa baanu waa sida way maxaad kaga dooratay hablaha waddanka hablaha waxa fiican inaad mar walba wixii cusub caalamka jecel marka saasaan anigu kulli raayigay aad u mahadsanti soo dhawaada ku bilaabay magacaaga walaal magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed Baarud waan dhawahay way Cabdixakiin hablaha reer Afghanistan sidaad aragtay in waddanka lagu soo dhaweeyo wallaahi walaal anigu hablaha reer Afghanistan waddanka waxaan oran lahaa lagu soo dhaweyn because waxa yeelay de kuweenii baaba aan xisaabtoodu ka kala dhiman tahay marka de ragga iyo dumarka markaad eegto dumarka ay ugu badan de maadaama kuweenii ay inta badan boqolkiiba 22 rag la'aan yihiin de anu waxaan oran lahaa kuwaas halkooda iska joogaan marka kuweena aynu iskala dabaalanno waxaan leeyahay Soomaalida inaga badanba dal kalena inaga badda hadalkiisa aad u mahadsanti walaal magacaygu waa Cabdirasaaq Caano weeye Cabdirasaaq sidaad aragtay hablaha reer Afghanistan in lagu soo dhaweeyo waddanka khalad baan u arkaa horta saaxib mana jeclin lagu soo dhaweeyo dalka kuweena hore inaga badan kuweena 4 iyo 6 aanu guursan marka ajaanibka iyo waxa la inaga daay lixda sharcigu ma ogole marna 2 fur marna 4 qab aad u mahad waad ku mahadsantihiin daawashadana saaxiibayaal meel kasta joogtaan ka hor intaanan muuqaalka xidhin waxaan jeclaan lahaa inaad channelka subscribe saartaan intii ku cusub aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu